wadibadbaxay ka dhigeen qaybo ka tirsan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir qaar ka mid ah shacabka ku nool degmadaasi kuba oo ku cabanaya dhul boob ay sheegeen inay ku hayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya dadkan ayaa waxa ay tilmaameen suuqii lagu iibin jiray xoolaha ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir in mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay iibsadeen taasina ay baal marsan tahay sida ay hadalka u dhigeen in shakhsiyaad hantida qaranka ay ku takrifalaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo laamaha garsoorka ee dalka ayayna ka codsadeen inay ka dhiidhiyaan dad ay ku tilmaameen in shaatiga dawladda ay ku dhibaateynayaan shacabka ku nool degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir shaqaalaha ka shaqeeya waan waardiyeynaa wax kasta qof kasta oo askari oo la keeno waa ilaalinaa weli kama dhicin suuqeena qof askariya in walxo lagu yeelo weli kama dhicin waxaan qabnaa guddi ilaaliya guddi tabantaaba guddi ay u hoostagaan dad ilaaliya dadka saa'idka ah oo dadka aan la aqoonin dad ilaaliya aan qabnaa walaalayaalo haddii aad dawlad tihiin haddii aad madaxweyne tihiin haddii aad saraakiil tihiin haddii aad gudoomiye gobolka taabid aad tahay haddii aad tahay ra'iisul wasaare gudoomiyaha baarlamaanka ilaahay ka cabso oo rasuulkiisa ka cabso oo malaa'igtiisa ka cabso oo ilaahay abuura ka cabsada masaakiinta ha baabi'inina ha gadanina dhulkooda ha gadanina danta guud ha gadanina dadkiina iyo dalkiina ha gadanina ilaahay ka cabsada war hadday timide war taabilow haddaad wax ka hortaa gudoomiye gobolka Banaadir إما سوق برتميسة ما فهمتي dadkan wax raali ku yiin dajmel dalka ala madaxka gobolka Banaadir ala madaxka dadkan dajmel hadii dadkaas aan ka xaq daranaana dhulkooda loo qaad anaga meel la daji xaqan ku ulana ilaahay dhaqaalan ka midna ma fahamtay ganacsatay baana dawladdan xaq u leena dalkan xaq u leena ma fahamtay waxaan qabaa xaq u leeyahay dalka ma hidina intaan dagana markaan niri waxaan leeyahay meel idinayna luuqyaha guryaha gala war ilaahay baa idinku dharshay ganacsi 10 kun oo qofood ay ku noosha oo 20 kun oo neef oo xoolaha taaginta meela kuma in leeyna qaran inuu yiraahdo xaqa maya halaga fiirsadaa war ku imaada war way sugayna khaasatan ninkan hadalkiisa si qaas ah toos u rab hadana shacabka gobolka Banaadir war baabay dhaba taagan war waxa taagan kura taagan buala taagan war shaqada taagan shaqada taagan shaqada haysta war dawladda sharafta naga soo gaarto talaba taagan war naga soo gaar bad xawa taagan naga soo gaar farmaajo naga soo gaar waxay sheegayaan walaalayaal waxa saad sheegay lankan oo macna suuqtan oo suuq hoos ay macna kuro tuugayaan dhibalay oo nyaanyi saak bilaawdeen nyaanyi amisal bilaaw kireetan dhahtan sidii nugeedoogi suuqta ayaa ka kadway tuugida dhuguna kasha markan waabaha in tumiyin oo ay canshuur qaadiya bilaawday oo balaray dilaal ku eena ma suuqiya dadalaaliga ku guurin leeyin dadalaaliga argaanuna maray suuqa ku guurin leeyin من دول قادنا سوق هرتي دولة نشانتي دولة نشانتي ينو بورياس وشخصيال منو بوري كوران حسن كاهية سومالي نيوز مقدشو